oo waxaan leeyahay horta Puntland waxay samaysay wax oo marka horeba ku talagalku ahaa hase yeeshee nasiib darro aan moodaa dhinaca koonfureed in ay ka gaabiyeen sida hadda maanta Puntland samaysay waa loo baahnaa waa arrin loo baahnaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhan arrintaas in ay maanta lagu naalon lahaa nin iyo od inay ka dhacdo waa tii annagana kharash aan gelinay in oo dalka oo qab oo xisbiyeed oo markaa xisbiyadu tartamaan oo nin walba nasiibkiisa iyo dadaalkiisa iyo soo dhoweynta shacabka uu wax ku helo laga baxo qaabka qaldan oo ilaa hadda socda oo habka qabiilka 4.5 taasoo aan dowladnimada aan waxba shuqul ku lahayn marka waxaan leenahay arrinta ka dhacday guud ahaan anigu waan leeyahay reer Puntland waxa waaye waa tii la ogaa weligoodba waana la ogaa inay iyagu markastaba ay yihiin tusaalka ugu horeeya ay sameeyaan waa ku mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed meesha ay joogaanna ay Soomaalinimo ku soo dhaweeyeenoo iyagana in Soomaalinimo ay u odeeyaanna taasna waa sharaf kale ay iyagu muteesteen waxaan leeyahay bal gobollada kale ama maamulada kale waxay ahayd inay ku daydaan guud ahaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrintaas in ay to aanan haddii maanta aysan dhicinin iyo odkiis laakiin aysan qalad la gelin oo safarka soo socda mar alla markii doorashadan ay dhammaatona xisbiyadu sida ay qayb uga qaadan lahaayeen arrintaas lagu buraarugo ama lagu dadaalo ayaan leeyahay reer Puntland guul الله تعالى qofka sona oo raba cadaalad iyo sinnaana waa lagu helaa inuu shacabka loo ogolaado qofka ayaga rabaan ay ku doortaan aad iyo aad u mahadsantiin waytaankiina waa tahay maxaa cashar ah oo laga baran karaa baad leedahay doorashooyinkan qof iyo cod ee markii ugu horeysay taariikhda muddo 53 sano kadib Soomaaliya lagu qabto gaar ahaan Puntland horta haddaan nahay xisbiga samo ama xisbiga sinnaanta ammaanka waxaan leenahay fiican oo laga baran karo laga barteena in laga gudbi karo qaabka qabiiliga hadda wax dowladnimada lagu dhisaayo in laga shaqaysan karo nin iyo odkiis in Soomaaliya ka dhacdo ayay ashar noo tahay doorashooyinka ceenkan oo kala ah qof iyo cod taariikhda inta adigu soo jirtay muu soo joogtay wax badan baan u soo joognay doorasho noocaana wax badan ayaan u soo joognay waxaan u soo joognay wax badan marka waa soo aragnay xilligii kacaankii ka hor waa jiray kacaankiina waa tan haddii asagana marmar uu isticmaal jiray qaab oo doorasho oo iyadana saas aan nadiif aan ahayn way iska jirtay marka wax annaka gaar ahaan qof ahaan igu cusub ma aha doorashada nin iyo cod waayahay doorashooyinkii lagu soo doortay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee ka horeeyay madaxweynihii dawladdii kacaanka maxamed siyaad bare sida cabdirashiid cali sharma arke allah u naxariiste iyo sidoo kale aadan cabdulle cusmaan dawladahaas oo kale adigu haddii aad soo joogtay codaynta ceenkan oo kale ah ma ka soo qayb qaadatay waan ka soo qayb qaatay inkastoo xilligii ugu horeeyay aadan cabdulle cusmaan kama aanan qayb galin laakiin midda xigto oo cabdirashiid waan ka qayb uga qayb galay oo kacaankaas markaas ayto dhalan doona waan ka qayb galay waan xasuustaa waan ka qayb galay doorashadaas oo ugu dambeysay iyadoo taasi ay jirto oo markii ugu horeysay doorasho qof iyo cod ee Puntland lagu qabtay
dhinaca kale waxaa jira dadyow Soomaaliyeed oo iyana koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda oo laga soo musaafuriyey Laascaanood, Ceerigaabo iyo meelo kale oo Somaliland gacanta ay ku hayso. Marka ka xisbi ahaan arrimahan sideed u aragtaan? arrimahaas waxaan u aragnaa ilbaxnimo oo soomaalinimo iyo walaaltinimo ay la soo baxeen, maadaama runtii ahaan inkastoo qolo walbaba gobol ay ku xoog badan tahay, laakiin haddana soomaalinimada in oo laysku faquuqo mid weligeed jiri jirtay ma ahayn. waxay ahayd qof walba markii heer doorasho markii la gaaro, sida aan soo aragnay, nin walbaba meesha uu joogo ayuu doorasho uu ka geli jiray, aana la dhihi jirin yani gobolkaad ka soo jeedo ama dadkaaga u badan yihiin caad lama dhihi jirin. marka waxaan isleeyahay Puntland waxay samaysay record kale oo xasuusin ah Soomaalidan ashar u dhigtay inay qof kastoo meesha uu joogo Soomaaliya xaqaas u leeyahay in oo doorashadu qayb uu ka noqdo. waxa dhamaanteena ayay dan noogu tahay. murankan badan iyo qaylidan badan ayay maxaa la yiraahdaa xal ay u tahay. isjiidkan badan oo isdabaraacan badan ayay dan u tahay. marka waxaan leenahay Soomaali meel kastaba ay joogto oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in ay ku fikiraan qaabkan oo hadda oo 4.5ka wax lagu qaybsanayo in laga baxo. waxaa nabadgelyada iyo sharafta ku jirta, dowladnimadina ay ku jirto in oo maxaa la yiraahdaa la tartamo oo la ogolaado in xisbiyadu ay tartamaan. nin walba markaaseeto wixii barnaamij dalkaas u hayo uu ka gado shacabka Soomaaliyeed. ayaan isku dhiirigelinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan. waayahay ugu dambeyntii xisbiga fikirkaas ayuu qabaa. xisbiga samo fikirkaas ayuu qabaa. ugu dambeyntii maxaa baaq oo jeedin lahayd? baaqayga waa midnimo, baaqayga waa dadaal, baaqayga waa islaamnimo, baaqayga waa isgarab. aan Soomaaliya sharaftii ay lahayd in dib loo soo celiyo ayaa baaq ay noo tahay. isqabqabkan iyo maamul goboleed qayb kastaba dowlad laga dhigo oo la isku hor keeno in Soomaali sharaf inay dan ugu jirin ayaanu tahay. xisbi ahaan baaqaynu ayuu yahay midnimo Soomaaliyeed ayaa sharaf noo ah. cadaalad ayaa walba deeqda. sidaas ayaanu qabnaa haddaanu nahay xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ololeynta.